السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتياشيدا قيمها iyo qadarinta mudan ee ku kala nool daafaha iyo dacalada adduunka aad iyo aad baan idin salaaminaa. Dhegeystayaal waxaan nooga barateen inaan idin soo dirino barnaamijyo xiiso badan isugu jira qaar siyaasad, qaar sport, qaar suugaaneed. waxaan kaloo ku caanbaxnay inaanu interview ka soo qaadno dadka aadka ugu weyn dadka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dalkeena Soomaaliland. waxaa marti inoogu ah mikrofoonka oon interview ka qaadi doonaa Barkhad Xaaji Cabdi oo lagu naanayso Mr. Gaboye oo nool magaalada Kingston ee gobolka Ontario ee dalka Canada kana mid ah qurba jooga reer Soomaaliland kana soo jeeda beelaha Gaboye. Barkhad ku soo dhawo barnaamijka. Samaal waad mahadsantahay waa ku salaamayaa marka ugu horeysa adiga iyo dhammaan maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيقتياشيدا قيمها iyo qadarinta mudan ee ku kala nool daafaha iyo dacalada adduunka aad iyo aad baan idin salaaminaa. Dhegeystayaal waxaan nooga barateen inaan idin soo dirino barnaamijyo xiiso badan isugu jira qaar siyaasad, qaar sport, qaar suugaaneed. waxaan kaloo ku caanbaxnay inaanu interview ka soo qaadno dadka aadka ugu weyn dadka ummadda Soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan dalkeena Soomaaliland. waxaa marti inoogu ah mikrofoonka oon interview ka qaadi doonaa Barkhad Xaaji Cabdi oo lagu naanayso Mr. Gaboye oo nool magaalada Kingston ee gobolka Ontario ee dalka Canada kana mid ah qurba jooga reer Soomaaliland kana soo jeeda beelaha Gaboye. Barkhad ku soo dhawo barnaamijka. Samaal waad mahadsantahay waa ku salaamayaa marka ugu horeysa adiga iyo dhammaan maamulka iyo mas'uuliyiinta iyo dhammaan dhegeystayaasha shabakada caalamiga ah ee ku caanamaashay sinaanta iyo cadaaladda raadiyo Hadwanaag dhammaantiin waa salaamaya marka hore. وكان قادني برخد waxaa tahay kulli nin laftaadu siyaasiya oo website-dana qora kuna nool dalka Canada san hore u sheegnay. marka barnaamijka maanta waxaan rabnaa inaan kaga hadlo waxa weeyaan koontadii uu madaxweynuhu u qoondeeyay beelaha laga tirada badan yahay oo dabcan aad ka soo jeedid kuwaas oo dareen ka muujisay. marka bal guud ahaan adigoo noo fasiraya maxay tahay koontada idin sameeyay sidee soo aragtaa adigu? waa su'aal fiican waxa weeyaan koontadu waa wax marka xaqiiqada laga hadlayo aan ku cusbeen Soomaaliland oo kaliya meelo fara badan baa laga isticmaalaa. maxaa hayday wadamo badan baa nidaamada sidan oo kala ah magaranayay laga hirgeliyay laakiin Soomaaliland markaynu ka hadlayno xaqiiqadii maaha markii koowaad ee loo sameeyay ama lagu dhawaaqay koonto in loo sameeyo beelaha laga tirada badan yahay. waqti marka hore waan soo dhaweynaynaa go'aankan madaxweynaha uu ku dhawaaqay isaga iyo guddidiisaba sababtoo ah hadii wixii wanaag keenaya ama wixii ummadda waxuun ku soo kordhinaya waa in lagu farxo la soo dhaweeyo. laakiin waxa noo raacdaa in aanu aad iyo aad aanu arinta aanu aragno anagoo soo dhaweynayna haddana mid aan sidii la rabay aanu hirgelaynin. tusaale ahaan markaan kuleeyahay aan hirgelayn waxaa jirtay 2008 baa jirtay madaxweynihii hore ee Soomaaliland muxuu ahaa Daahir Riyaale markii uu joogay uu talada dalka hayay sidoo kale la sameeyay oo kootooyin guddi baa loo xil saaray in beelaha Gaboye ee laga tirada badan yahay iyo haweenka reer Soomaaliland ba sidii kootooyin cayiman loo siin lahaa oo ay uga qayb qaadan lahaayeen siyaasadda dalka Soomaaliland iyo xukunkeeda. taasi waxay noqotay mid suurtoobi weyday xaqiiqdii oo markaa sidii loogu dhawaaqay ee madaxweynuhu guddidu u sameeyay kadib markii loo gudbiyay la gudagalay sida lagu maqaalaha la sheegay in guddida markaa oofin lahayd amba saxin lahayd ee golaha guurtidu ay joojiyeen ay hor istaageen. marka anagoo ka baqa qabnaa kootadan maanta guddidan cusub ee madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Tiiraaye uu magacaabay inay tii oo kala dariiqeedii ay marayso. waxaan markaa aan leenahay ha noqoto mid hirgasha marka koowaad oo aan noqon sidii tii hore oo kale mid afka laga sheegay ama sidii maamahadii oranaysay oo kale waxna ha u qaban qowdana maqashii inaanay noqon baan leenahay madaxweynaha iyaga in la oofiyo oo dadkan dalkay u dhasheen xaquuq bay u leeyihiin in xaqooda la siiyo ayaan waan gartay Barkhad
laakiin dad badan oo beelaha kamid ah waxay ka muujiyeen rajo wanaagsan in maanta ay u meel maraysa ama suurtoobaysa in koontada la siiyo inkastoo ay dalbadeen in numberka loo qoondayn doono uu noqdo mid ku filan oo u qaybsama fiican sida uu kaba dhawaajiyey suldaanka guud ee beelaha Gabooye suldaan Daakir oo mar la wareysanayay sheegay in ay soo dhaweynayaan si fiican ka filayaan inkastoo isagu sheegay yiri gobolada in xubin laga soo xulo maha wax ku filaanaysa oo waxa ka dhici karta in iska hormaad ka dhaco laakiin waxa fiican in weeraan afar ay si fiican ugu qaybsanto koontada ayuu u sheegay laakiin si fiican uu ka muujiyay laakiin miyaanay ka fiicnaan lahayn inaad doorasho toosa gashaan dadka qaar baa aaminsan yihiin maadaama aadan dad yar ahayn gobolada dhan ku nooshiin gobol kasta doorasho aad ka gashaan oo 2 qof aad ku midoodaan gobol kasta ama 3 qof ama 4ba aad soo saari karaysaan yani ka fiicnaan lahayn halka aad la wadaageysaan number go-an dadka minority oo dhan aad la wadaageysaan man ka fiicnaan lahayn inaad idinku doorashada caadi uga qayb gashaan ku heshiisaan dad gaar ah oo idin matala bal ka waran ra'yigaas waa su-aashu waxa weeyaan jawaabteedu waxay noqonaysaa dee waa la ogayo qof kastaaba wuxuu kusoo baxaa waa cod iyo tiro ayuu kusoo baxaa anigu xaqiiqiyan markan hoos aynu ugu dhaadhacno 3 xaalaba hadda beelaha minority-ga lagu sheegayo ama beelaha iyagan Gabooyada 3 xaalo midna inaad uma geli karaan maanta inay codkooda kusoo baxaan waa ta koowaade xag abaabul ama xag siyaasi xaqiiqadii ma joogaan Soomaaliland oo ma badna siyaasiyiintu hadda talabaad bay noqotay xisbiyada ayaa loo kala tabsan yahay oo xisbiyada laftigoodii baa codkii urursanaya oo kala daadinaya ummadii marka horta xaqiiqada marka laga hadlayo waqtigan xaadirka kuma soo bixi karaan cod la siiyo oo la yiraahdo codkiina ku soo baxa oo mid iyo 2 iyo 3 ama gobol kastaba ka soo saarta 2 iyo 3 taas waxay noqonaysaa marka midaan hadda u suurtoobi karin iyaga sababtoo ah 3 xisbi markay u qaybsamaan waxay taasi keenaysaa dhabar jab weyn oo ku yimid beesha haddii taasi imaan lahaydna kootaba maanta meesha may timaadeen miyaan iyagu aan ka heshiin karin oo aanay dad gaara ku heshiin karin oo usoo baxa oo doorashada ugu orda oo codkooda meel isla midaysan ay meel ku ridaan way imaan kartaa waqtigeeda imaan kartaa kulli laakiin xaaliyan hadda waqtiga hadda aynu joogno markaynu ka hadlayno beeshu xag dhaqaale iyo xag maxaa hayday isku xidh la'aan intuba way jiraan kuwaasaa keeni kara marka inaanay isku xidhmi karin amba aanay soo saari karin dadkii la rabay inay codkooda soo saaraan oo ay hal meel codkooda mariyaan waananu jeclaan lahaynba taas oo meesha timaado oo dadku ay ka midoobaan oo hal hadaf yeeshaan laakiin dhibka jiraa wuxuu yahay dee dawladdii laftigeedii iyo xisbiyadii baan ka faragaabsanayn oo kula jira gacmahoodii kula jiro dadkii qaybinaya oo xisbiyadii u kala codaynayo annaga codna si annaga waxay siinay taasina waxay keentay in xisbi walba codkii markuu beesha qaato aanu u xalaalo wuxuu beeshii heshiisku la galay iyo ballanqaadku siiyey midna aan oofinin ayay noqonaysaa iyadoo waxaa jira dad kale oo iyaguna laga tiro badan yahay oo aan ahayn beelaha Gabooye ahayn sida la sheegayana idila leh kootadan marka sidee bad malayn lagu heshiinayo kootadan laydin wada gooyay waxa weeyaan waa su-aashan imika meesha taale dareer xoog dadkii gelisay weeye laakiin muhiimada meesha taala waxa weeyaan reality marka laga hadlo de Soomaaliland marka laga hadlayo waxa minority lagu tilmaamaa ama minority ah loo yaqaana waa beelaha Gabooye anigu ay dhaana garan maayo beelahan kale anigu waxaan malayn malaha hadday dadkan yimaadeen oo waa dad cusub oo hadda la qarabeynayo la rabo in la yiraahdo Somaliland weeye meesha ku dhashay Soomaaliland waa la yaqaan dadka ku dhashay dadka minority iyo majority loo kala tilmaami karana waa la garan karaa laakiin beelaha kale ee hadda la sheegay leeyahay 12 beelood oo minority ah anagu garan mayno laftigeeda waanu ka digaynaa xukuumadayada waanu uga digaynaa annaga oo xaquuq darri tirsanayna annaga oo cadaalad la-aan tirsanayna annaga oo sinaan la-aan tirsanayna haddii haddana kootooyinka aan meel mar kala hayne aanu ka baqayno weliba inaanay siday ahayd meel u maraynin hadday dawladdu arrinkaa go-aamisto waxaan u aragnaa xaquuqdayadiyo mar kasta lagu tumanayo wanaagna meesha imaanaynin kana yeeli mayno dawladda mana ogolaanayna taas kolley barkada way jiraan dad kale oo minority way jiraan oo dadka dalka dee generation kusoo noolaa way jiraan kolleyba laakiin numberkoodu way dhici kartaa inay iska yar yihiin laakiin way jiraan dadkani
idinku haddaba su-aalka haddaan ku weydiiyo arrinkan sidee ba ugu diyaar garowdeen ka beel ahaan gabay ahaan? wallahi diyaar garowgu waxa weeyaan waxay noqonaysaa dee horta inaan laga hordhicin mako sababtoo ah dee guddidiiba weli go-aan kamay soo saarin oo wadatashigai laga sugaayo weli uu maqan yahay oo waxaan ka sugaynaa waa guddida. laakiin kolley dee beel waliba dee waa is-abaabushay, beel waliba maxaa hayday arrin iyo dee heshiis iyo go-aanba meesha way dhigato, taa waa la sugaya. waxaana qurux badan oo markasta fiican inaan laga sii hordhicin nacamti marka inta bal wax lagu dhawaaqayo. laakiin xukuumadda laftigeeda waxaa saaran xil weyn baa ka saaran. waxa weeyaan hadda salaadiinta markay ka hadlayeen waa aad baan usoo dhaweynay, si fiicanna way uga hadleen markay leeyihiin nacamti inaanay dawladdu bixinin nacamti oo gobol kasta la oran hal xubnaha laga soo qaado. matalan anigu markaan ka hadlo beelaha iyagaan ka hadlaya marka xaquuqdeeda aan naga maqanta aan u raadinayno 4 beeloodi Soomaaliland 6 gobol iyo inta degme ee Soomaaliland ay leedahay oo deganay. marka koota la sameynayana waa in gobol kastaba 4 beelood gobol walba way degan haloo yar kala badnaado oo de majority sidan aynu kala naqaanaba haloo kala yeeshaba. laakiin gobol walba waxa wanaagsan dawladda iyo guddidana xil ka saaray in aanay xubnaha la keenaya noqonin kuwa aanay beelii ku qancin ama dib aan u horseedin inaanay noqon. oo gobolka Hargeysa kale dee xubno 4 beelood u qaybsami karaa oo ay ku heshiin karaan iyagu oo ay ku qanci karaan in dawladdu soo iyo guddiduba ay dadka ay u soo bandhigaan baa fiican oo isiyaan. waan gartay iyada haddii maadaama sidan hore u sheegay xubnahan ama kootadan dadkan la iskula jiraan wadna sheegto idinku dabcan inkasta la kala xiriir wadin socda xagga gabayo beelahaas, laakiin beelahan kale iyaga ma la xiriireen qorshe samid ku jira inaad la xiriiraan sidii aad arrinkan uga hadli lahaydeen iyo sidii aad uga maartay tashan lahaydeen wixii soo baxay si loo qaybsan lahaa? beelahan meelay ka yimaadeen maana u garan mayno. talabaad xiriir waxaan kula yeeranaa meeshan ma jiro dee minority marka laga hadlayo annaga Jamaalow 4 beelood baa minority iyagaana xaq ku leh wixii koota loo gooyana iyaga ayaa inay yeeshaan maaha beelo kale in lagu soo daro. marna baan ugu taayeelimayno, dawladana waan uga digaynaa. oo gartay iyada watan la faray barkhadow watan marka la faray xisbiyadii ama ururadii noqonaya kuwa kasoo baxa xisbiya qaran iyo isreebreebkii u furmaya dhawaan runtiina dad badan baa u tafaxaytay sida ay u furtaan xisbiyo ama ururo. idinku xisbiya idin gaara mid furanaysaan mise saad sheegtay xisbiyada hadda jira ama kuwa la aasaasayay maqaayad unbad ka qayb gelaysaan? taas waxa weeyaan jawaabteeda marka xaqiiqada laga hadlaayo horta xisbiyadii hore dee wax dan oo inoo hayeenba ma jirin. mid kale oo caawa la furo oo cusubna oon codsiinaana dan uuna siinaya maba jirtaba, taa waan ognay. sababtoo xisbi waliba uu lagu dangaaraa. horena waanu sheego salaan baan u noqonay xisbiyada Soomaaliland 3 xisbiya Soomaaliland ama mid caawa soo biira ha noqdo cusub ama kuwa kale oo mar kale yimaadaba ha noqotee beelaha gaboy salaan bay u noqdeen. salaankana waynu naqaanayo salaanku waa shay intifaac leh oo marka meel amba la dhisaayo ama wax dee aad u baahantay agaba aad meeshaad gaari weydid aad ku gaadhid. markana lagu dangaarana salaankaas marka lagu dangaaro inta la soo qaado la iska dhiga aqalka ardaagiisa dibadda cidbad ka daba gelinba tabtaasay horta xisbiyada annaga aan u nahay oo salaanka lagu meel gaaraya. mid kale oo maanta cusubna codsiin mayna annaga horta haddaan nahay anoo ku hadlayo magaca guud ee qurba joogta beelaha gabooye iyo dhammaan inta wax garadka beelaha gabooyeba waxa aan beesha maanta iyo odayaasha iyo salaadiinta ku nool Soomaaliland in aanay marnaba codka beesha inaan marnaba xisbi dambe la siinin. kubii hore hadday tahay mid cusub hadday tahayba waa ummaddu waxay wax qabsataa ama ummaddu wax noqotaa markii iyagu horta ay cagaha isku taagaan. waxaan ugu baaqayaa weliba qurba joogteeda aan ugu baaqayaa in jaaniskaasi uu noqdo jaanis dadka looga faa'iideeyo, hal xisbi lagu midoobo oo heshiis iyo sida loo yaqaan xisbiga lagaga wada hadlo oo la iskugu yimaado dhaqaale loo guro oo xisbi la furto si cod loo helo. even haddii xisbi la furo oo codkii la rabay aan keeni weyno amba aan wax ku weyno waxaan heli karnaa inaan ku meel marno in xisbiga annaga noo yimaado yiraahdo codkiina inta leeg aan isku darsanno kadibna aan annaga xisbigii noqono dad siman oo xuquuqdoodii kala qaadanaya oo heshiis wada gelaya. waxaan markaa aan aad iyo aad aan usoo dhaweynaynaa in xisbiyada aanu kaalin ka qaadano, xisbina aanu samaysano, qof dambana aananu daba fadhiisan haddaanay beelaha gabooye.
xisbigayga aan ku qanacno waxaan ku helno cod ah waana ku tala jirnaa waana ugu baaqayaa qurba joogta dad badan siyaasiyiin badan iyo salaadiin badan aqoon-yahaniin badan oo qurba joogta waanu ka wada hadalnay insha allahna waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsaha badan in arrintaas aan u oofino marka xisbiyada la furana aan xisbiga ku dhawaaqna anagu barkad waxaan kalan ku weydiiyey kolley meel weyn baa tiino ballaaran oo degta dalka oo dhan degta siyaasadana damac ka hayo dalkana rabta inay qaybteeda ka qaadato ma leedihiin rag caan ahoo matalan siyaasiyiin ahoo usoo babacdhigaya siyaasadda maanta iyo doorashada oo raba inay kusoo baxaan haddii xitaa noqoto tiina gudaha ha waanu leenahay siyaasiyiin badan baanu leenahay somaliland horena madax uga soo noqday haddana jooga qaar badan oo dibadda ku nool oo dee arkaan sinaan iyo cadaaladna dalka tegi lahaana waa badan yihin waa jiraan oo taa lama oran karo beeshu ma laha siyaasi ama siyaasiyiin dee wax goosta amba siyaasiyiinta la tartami kara intaba walaal waanu leenahay maxaa ahayde dalkana waa ku sugan yihiin dibaddana way joogaan labadaba waananu ku tala jirnaa in qaybteeda aanu ka helno hadii insha allah hadii a la yidhahdo dadaalo fara badan baanu ku jirnaa ma kula tahay in mawqifkii hore ee beeshu lahayd ee ahayd inay ka yara maagto meelaha wax lagu qaybsanay siyaasadoo kale inay hadda sidii hore bedesho kasoo dhawaato oo ay maaragtay dadka waxay ay xaq ugu lahayd ka qaadato oo ku doodo oo sidii hore kasoo dhawaato ma kula tahay ha aada iyo aad ha aada iyo aad ilaa maalinkii somaliland lagu dhawaaqay ilaa maalinka habeenka caawaan wada hadlayno intaaba way hadlayaan hadday salaadiinta tahay hadday cuqaasha kala tahay hadday dhalinyarada tahay hadday tahay siyaasiyiinta intaba walaal way jecel yihiin inay xaqooda iyo xaquuqdoodaba ay helaan laakiin de meeshii siyaasadii markaad qiimaysid waxay noqotay un mid dhinac u janjeedha ama dhinac loo raray un bay noqotay siyaasadii iyo xukuumaddiiba taasi waxay keenaysaa marka inaanay dee waxba ku welin iyagu meeshii laakiin waa ku tala jiraan isbeddel weynna waa jiraa barkado adigu waxaad ka mid tahay ragga aqoon-yahanka dabcan siyaasadana aada iyo aad ula socda marka adigu ma kugu jirtaa damac siyaasadeed iyo nasaka ka qayb geshid maanta loolanka u diyaar garoobaya wallahi kulley ma xuma nin walba damaciya hamgu leeyahay kulley anigi kulley dadba ila mid hibade way jiraan laakiin marka horta walaalkaygii joogay siyaasiga ahaa uu helo hankiisii iyo xaquuqdiisii uu helo dabcan marka ana hamigeedu wuu gelaya laakiin hadda niyadun baanu dhisaynaa anagu haddaanu nahay dhalinyaradii qurbaha joogay niyadun baanu udhisaynaa dadka dalka jooga si ay dadka ula wax la qaybsadaan meesha cadaalad ma jirto waxaan kuugu dirayaa oon rabaa in yar inaan hadda bal milicsano somaliland himiladiisa waxay horumarkay soo gaadhay ilaa markii lagu dhawaaqay somaliland dhinacyo fara badan ba ayaa laga qiimeynayaa inay tahay mid dal horumar gaaray oo xag dimuqraadiyadeed iyo xag maxaa ahayday dhaqaale xag maxaa ahayday xukuumadeed iyo isbedeladii ka dhacay dalka ee lagu kala qaatay xukunka ee si nabad iyo sinaan iyo intaba ku dhacay laakiin annagu waan ka qatanay haddaanu beelihii gabooy shirkii lagu qabtay 1991 boorame beelihii somaliland amba xukuumadda maanta jirta waa xukuumad ay saldhig u yihiin beelaha reer somaliland oo isku afkarteen laisku saamaxay lagu heshiiyey in wax lagu qaybsado sadbursi sad beeleed lagu qaybsado wax tii ilaa hadda maanu arkin anagu haddaanu beelaha gabooye qodob baan ayaa kuusoo qabanaya oo dastuurka somaliland wuxuu inoo qeexayaa markaan qodobadiisa aan waktigaa aanu saxeexnay oo salaadiinta iyadii saxeexday ay maanta joogaan wuxuu ahaa muwaadin kaste oo dalka u dhashay somaliland wuxuu xaq u leeyahy isaga oo xorriyadiisa iyo maxaa ahayday xaquuqdiisa ku heli kara si nabada in uu ka mid noqdo dalka somaliland uu isku sharaxi karo madaxnimo oo uu xaq iyo xaquuq ku leeyahy tii ma lihin anagu way naga maqantay barkad waxaan kalan ku weydiiyey oo dadka qaarna isweydiinaya markay arrinkan maqleen ma hal reer baa loo jebinayaa dastuurka dalka ee odhanaya dadku waa u siman yihiin doorashadan laga wada qayb galo waayo waa laga tiro badan yahay waayo imka haddaan tusaale usoo qaadan dalka maraykanka kale madaxweynaha talada haya waa nin laga tiro badan yahay laakiin muu kooto kuma soo bixina doorasho caadi u kala kusoo baxay dadka saa u doodaya maxaad ugu jawaabi lahayd wallahi waxa weeyaan waa su-aal wey taasi meesha taalan ta labaad waxaa kuu raacinaya haddaynu milicsano madaxweynahan maanta maraykanka waa runoo de minoritigii maraykanka ee aan wuxuu ku lahaa markii hore jirin ayuu kamid yihi maantana wuxuu kusoo baxay waa cod iyo karti annagu haddaanu beelaha gabooye waxa loo baahan yahay in aanu kartidaa la nimaano annaga laftigeegu inaanu kartidaa la nimaano oo nin kasta oo beesha gabooye ahi markuu arkaayo inaan xaquuqdiisii la siinaynin
minority uu leeyahay inaan anaguna isoo soo saarnaa waajib ah oo la soo taala nimaano taasi waxay keenaysaa marka horumar iyo hididiilo iyo isbedel ku yimaada beeshii ay horumar ku gaadho taasna waxa ku xirantay waa fairness waa anaga secondina waa maamulkiina cadaalad ku dhaqmo iyo sinaan beelaha waliba waaweyn ee Soomaaliland ka mid yihiin marka idinku bahay shirlad ka maqlaa qaylay iyo maaragtay cabasho waayo maxay ku dhacday malanaysa wallahi waxay taasi waxay noqonaysaa anu waxaan imika aaminsanahay minority marka la leeyahay in dana gaar ahaaneed ba ay meesha taalaba iyo siyaasad dadka lagu kala adeeganayo ama lagu kala jiidanayo sababtoo ah dee beelaha kale xaquuqdoodii baa la siiyey marka kii xaquuqdii duusiyeyna wuxuu leeyahay minority-ga waxa la siiyo isagaabay duusiyeyba marka taas waxay keenaysaa muxuu ahaayday in game ay tahay oo kale minority yaa dalka yaa tiriye horta dadka ku nool yaa caddayn kara inaan anigu ahay minority dalka aanu ugu yar maanta inaan ahay balot yaa caddayn kara waa cidnaba beelaha kale yaa caddayn kara taasi waxay keenaysaa marka in beelihii kale sinaan la siiyey dadbursi ay yeesheen minorityna aniga laygu tilmaamaya kii waxa igeysana anigii uu leeyahay minority-ga ha loo kaco waxa loo qabto waan gartay barkad waxaan ku weydiinay su-aalka loo aheen dad aada u balaaran baatiin waxaa ku nooshihiin shanta Soomaaliyeed ku nooshihiin Ethiopia Djibouti NFT Soomaaliya Somaliland baa ku nooshihiin marka halkiibaad mantiqadeed leedihiin waad ku aadaydin qadariyaan oo aad maxay haytay idinku fiican badan malanaysa horta dee haddaynu qiimeyno anigu fikir ahaan riyahantan qabarto dee bal dalka Soomaaliya marka la qiimeeyo koonfurta Soomaaliya dee iyadii baaba dhibanaadeer iyadii baa dhiban oo wax laga qiimeeyaaba maanta ma jirto Puntland kaba daran boo iyaduna dee qof baa waxa aan oran karno xaquuq baa lagu siiyay beelaha iyaga degan maano aragayada maxaa hayday Ethiopia markaad sheegaysid dee way helaan xaquuqdooda way ku heleen ilaa heerar waxay ka gaareen wasiirnimo ilaa heerar fiican bay ay ka gaareen gaboyo halka ku nooli laakiin Soomaaliland oo aan runtii aad ugu han weyneen inay iyaduna ka mid noqoto sida ta Ethiopia kala wada mid xaquuqdeeda beelahan xaq iyo xaquuqda kula inay siisa ah oo marnaba aanu aaminsanayn inay noqon doonto dal dimuqraadiyadda iyo hanaanka hadda jira ee isbedelka ah mid aanu qaybteeda ka qaadano oo aanu lamid dadka la sinaano iyada laftigeedu dee waxaan ku dhaliilaynaa inaanay xaquuqdeeda noo dhamaystirin laakiin Puntland oo kale marka la qiimaysid dee lama sinaan karto oo Soomaaliland wasiir ku-xigeen baaba jira baa la oran karaa laakiin Puntland oo kale weli ma maqan runtii nin la yidhi waa gabooyo waa wasiir ku-xigeen buu ka yaaba waa gabooyo laakiin Soomaaliland dee waa horena waa u jirtay imikana ugu jiraa haddana still waxaanu aaminsanahay in xaquuqdii nagaga maqantay Soomaaliland haddaanu beelaha gabooyo reer Soomaaliland haddaan dhinaca kale u gudubno maanta dalka siyaasadiisa waxaa haya hogaanka u haya xukuumad loolan karo cusub tahay oo sanadii xoogay jirtay marka ballanqaadyo badan bay sameeyeen dadku qaar dhaliilay qaar law waxbay qabatay way jiraan adigu sidoo aragtaa siyaasada dalka maanta lagu hagayo guud ahaan kolley waa xisbi qaran buu ahaa oo dalkaas tartanna soo galay isbedel cusubna watay siyaasad cusub xaqiiqdii dee meelo fara badan oo la taaban karaa way jiraan xagga dalka hadday tahay maamulkiisa horumarkiisa laakiin anigu haddaan ahay minority aan qiimeeyo ama ninka gabooye ah ee u dhashay qurba joogta ay kasoo jeeda maxaa yeelay reer Soomaaliland aan ahay waxaan qabaa isbedel inaan ka arag xisbigan cusub ee talada dalka haya maanta sababtoo ah dee wuxuu ii qabtay ma jirto ama xaquuq uu siiyey oo aan maanta oran karo isbedel baa aniga la horteeday ma jiro laakiin beelaha kale reer Soomaaliland isbedel buu siiyey xaqiiqiyan runta marka laga hadlayo isbedel weyn buu siiyey oo waa loo qiraya laakiin aniga waxba ilaa hadda kuma qabo marka waxaan aaminsanahay inuu dhan u foorarto oo qarankii Soomaaliland ay qabyo tahay baan aaminsanahay anigu waa qabyo baan leeyahay Soomaaliland waxaan ku darayaa Soomaaliland 22 sano ayay waxay u halgamaysaa oo ay fadhi iyo istaagba u martay iyo milic iyo kuleel baa u maraysaa ilaa aqoonsado Soomaaliland waxaan leeyahay Soomaaliland ilaa aad adigu is aqoonsatid oo aad ummadaada iyo dadka muwaadiniinta dalka u dhashay aad qaabishid lagu qaabili maayo lana qaabili maayo anoo jecel oo xornimada jecel Soomaaliland anoo taageersan oo nin reer Soomaaliland ah haddana intay taasi taalo ilaahay baa wax arka cadaalad daridaasi ay meesha ka baxdo oo la aqoonsado inahay muwaadin oo xaqayga halka la dhigo Soomaaliland la qaabili maayo baan qabaano miyaan aanay habboonayn maadaama dawladdu ay maanta ay dhegeysanayso talaabooyinkii ugu horreeyay qaaday oo ay leedahay control baan sameynay oo dadka qaar xitaa ay dee u arkaan in ixtiraam ladin sameynayo awgeed dastuurka xitaa laydin furay miyaanay ka fiicnayn inaad xidhiid dawladda la samaysaan oo wixii aad doonaysaan kala xidhiidhaan inta saxaafadda loo marinayo baaqa ama fariimaha in toos
toos loola xidhiidho oo wixii la tabanayo wixii la doonaya lagala hadlo dawladda miyaanay fiicnayn kulley salaadiintuna waa ka hadleen somaliland ku sugan ee wacyiga ama dee meesha maanta laga hadlayo dee dhibaatada ama xaquuqdarida laga tirsanaya ay tahay somaliland qurbajoogtana dad badan oo xidhiidha sameeyena waa jiraan qaar badan oo hadda aan kula hadlaayo xidhiidho fara badan oo jiro wada tashi ah sidii dawladda maamulka somaliland guddi aan u xil saari lahayn oo xitaa aan ku tala jirno inaan somaliland marcagaha ay guddidaas tagaan oo ay la xaajoodaan oo xaquuqdooda ay ka raadiyaan oo ummadda u raadiyaan intaba waan ku tala jirnaa waana anagu mar kasta waxaan soo dhaweynaynaa nabadda iyo xasiloonida iyo maxaahiday qarannimada somaliland anagu marnaba kama soo horjeedno waanu qaamisannahay qaran somaliland inay tahay xukuumadayada iyo maamulkana waxaanu ku buurinaynaa oon ugu baaqaynaa muwaadiniin dhab ah ayaanu nahay inaan yooyootan ka baxado xaquuqda aan ku leenahay dalkayga somaliland oo xaqayga sida beelaha kale loo siina loo siiyo dulqaadkiina waa naga soo dhamaaday xaqiiqdii somaliland waxaan leenahay dulqaadkii waa naga soo dhamaaday haddii ay somaliland oofin weydo xaquuqdayada inayna siiso rag baa ilaahay naga dhigaya de waanu tashanoo meeshii xaquuqdeeda aanu ka helina umaan dee aanu go-aan ku gaarayn anagu waayo barkad waxaad muujisay imarka cabasho badan baad muujisay iyo sideedan raalli ugu ahayn dawladihii soo daba joogay ee somaliland marka idinku bal maxaad raalli ku noqonaysaan ee aad u malinaysaa inaad idin raali gelinayso ee aad doonaysaan in dawladdu idin samayso anu kulley sad ka siyaasan beelaha somaliland ee maanta aamusan ee habi ku ah sad ka siyaasan uma raadinaya tahay habi ku yihiin teedii baan raadinaya oo xaquuqdoodii la siiyey ee sinaaneed ee muwaadin loo aqoonsay inuu yahay muwaadin dhashay beelaha kaleba ay habiga ku yihiin teedii baan raadinaya aniga taasuma aniga ay qancinaysaa haddii doorashadii weyneed lagu fasaxay oo lagu yidhi ka qayb gal oo haddii haddana lagu yidhi markii la arkay taa aad tidhi kuma soo baxay haddaan galo kooto gaara lagu xiro lagu siiyey yani dimuqraadiyad ka fiican taas maxay tahay iyo xuquuqda ka fiican maxay tahay taas wal haddii la oofiyo haddii ballanta sidaa loo oofinayo kootooyinkaas hadda uu madaxweynuhu uu ku dhawaaqay iyo guddiduu sameeyey hadday sida sharci ah oo dimuqraadiyad oo cadaalad iyo sinaan ah loo oofiyo oon ummadayadana wax u dhimin ummadayadana aan wax u dhimayn tusaale haddii magaalo kasta la yidhahdo waxaan ummadii u ahayn sadkoodii ahayn baa la siinaya dee dhibaatay noqonaysa laakiin haddii ay noqoto midaan ummadeeda wax u dhimaynin oo xaquuqdayadii sinaaneed ee aanu lahayn ay noqoto waanu soo dhaweynaa mar kastana habi baan ku nahay anagu guntii gabagabadii waxaan doonaya in kuweydiiyo bal maxaad usoo jeedinaysaa kelmadda usoo jeedinaysid shacabka somaliland guud ahaan iyo gaar ahaan beelaha gabooyo waa maxay walaal 3 qodob baan rabaa inaan soo jeediyo oo kusoo gabagabiyo waa qodobka koowaad weli waxaan daba taaganahay oo aan ka digayaa xukuumadda somaliland iyo madaxweynaha iyaga go-aankaas inuu noqdo mid aan la mid noqon kii 2008 ee cidlada la dhigay waa talabaad waxaan madaxda iyo mas'uuliyiinta somaliland iyo madaxweynaha iyo guddidana aan ka codsanayna oo uga digaynaa in beelaha iyaga minority-ga lagu tilmaamay 4 beelood cid aan hayna inaan koosana lala siin anaga waxaan talabaad aan uga digayaa beelaha gabooyo reer somaliland in aanay iyaga gudahoodii aanay tafaraaruq iyo aanay dhexdooda imaanin kala fogaansho waxaan ku buurinayaa inay isku mid noqdaan salaadiin aqoon-yahan indeedgarad intaba inay isku aragtiyo hadaf ka yeeshaan arrintaa qurbajoogtaydana waxaan ugu baaqayaa oo ku buurinayaa in ay si degdeg ah ay kulanadooda u socda ay usoo dhammaystiraan go-aanadoodana ay usoo bandhigaan ummadooda iyo xukuumadoodaba dalka iyo dadkoodana ay u noqdaan dad wax u qabta oo gacmaha u fura oo had iyo jeerna la socdo tallaabo gargaar hadday noqoto iyo hadday siyaasinimo noqotoba dalkii la tago oo wax lala qaybsado taana waanu soo jeedinayaa qurbajoog barkad aad iyo aad baad umahadsan tahay kaas wuxuu ahaa barkad xaaji cabdi oo ku magac dheer master gabooye kuna nool magaalada kitchener ee gobolka ontario dalka canada aad iyo aad baad umahadsan tahay mar labaad master barkad adaa mudan walaal jamaal waa ku salaamay adigana mar labaad iyo dhammaan maamulka weliba saaxiibkii qaaliga ah ee maamulka hadwanaag raadiyo hadwanaag axmed naasir jibriil iyo dhammaan akhristayaasha dhammaantood waan salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waay dhegeystayaal aad iyo aad umahadsantihiin wararkaas xiisaha le aan idinka qabanay barkad xaaji cabdi master gabooye oo jooga dalka canada oo ka hadlay koosada loo sameynayo beelaha laga badan yahay somaliland dhegeystayaal intaan ku kulmi doono
barnaamijkan oo kala xiisa badan waxaan iskaga tegaynaa anigoo ah Saciid Jamaal oo jooga magaalada Minneapolis sidaas iyo nabadgelyo iyo isma dhaafno